munaasabadan ayaa ahayd mid loogu duceynayay Allah u naxariistay Daahir Cusmaan oo ka mid ahaa bahaweynta isboortiga Soomaalida UK oo dhawaan ku geeriyooday magaalada Makka ee dalka Sacuudiga. waxaa munaasabadani soo qaban qaabiyay bahaweynta isboortiga Soomaalida UK iyadoo munaasabadani ay ka soo qayb galeen jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool London. dadkii ka soo qayb galayna hadaladoodii waxaa ka mid ahaa sida tan. waxaa kulay naga xusuusa in maaragtay xusuustan iyo tacsiidan maanta ay kulmisay qaybo badan oo bulshada ka mid ah ama da'yaal badan oo isdhaldhalay. nin aan wanaag ku kasay oo hajri nin geeridiisa inaga wadan aan ka naxnay ee naxatay. daahir wuxuu taray ummadda dhamaanteena waa ognahay ilaahay jannada ha geeyo kitaabkiisa midigta Allah ka siiyo qabrigiisa waasac loogu dhigo. kollayba waa geerin xadin laakiin de waa wax xaq ah meel looga leexanayo iyo meel looga leexdo toona ma jiraan. Allah u naxariistan leeyahay anaga ah loo duceeyana wixii uu ka tagayna ha loo kaalmeeyo. daahir wuxuu ka tagay ifka uga tagay maaragtay hal xaas iyo 4 caruura. waxyaabay oo baray footballka ka hor waxa ka horeysa waxa kamid ahayd inuu mar walba bari jiray aadaabta iyo dhinaca diinta mar walba nagu gubaabi jiray. marxuum Daahir Cusmaan Faarax Allah u naxariisto janna Allah ka waraabiyo. maalinka waqti badan ma isla soo qaadanay waliba 5 sano ugu dambeysay dad adag oo meel weyn nooga yaalaan naga tagay oo ka mid yahay adeer isoo maray walaalkeen Daahir. waxaan tacsiyad gaar ahaan anaga u direynaa walaasheen Nuuno Cumar Kukay oo aan isku ehelnahay isku abtirsanayno. waxaan leenahay samir jamiin Allah idinka siiyo iyadii caruurteeda. ilaahay asagana jannadii firdaws ilaahay ka waraabiyo illadii uu ka tagana samir iyo iimaan Allah ka siiyo. ilaahay maanta waxaan uga barayaa jannada ilaahay inuu geeyo ciyaalkiisa iyo islaantii uu ka tagayna ilaahay khayr hayni ugu bedelo. waxaan u tacsiinaa ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo caruurtiisa iyo xaaskiisa dhammaan familki oo ka tagana ilaahay waxaan uga baryaynaa bedel khayr qaba inuu galiyo. waxaan tacsi ugu direynaa eheladiisa iyo xaaskiisa iyo caruurta uu ka tagay. dadkii sportsku samir iimaan ilaahay kulligooda ka siiyo isagana ilaahay jannada firdawsa iyo qabrigiisana ilaahay waasiyo. waxa aan daahir ku arkay ma ilaawo qof kastana waa u sheegaa. ilaahay horta Daahir Cusmaan Faarax annaga sabar siiyo. daahir saawogtiin wuxuu ahaa qof aad iyo aad u afgaaban weligiis isaga in laga gardaraado ma jeclayn qofna inuu dib u geysto. waxaan tacsi iyo aan halkan ugu dariyaa marka ugu horeysa familkii uu ka tagay Daahir Cusmaan oo ugu horeeyay wiilkiisa maanta inta nala fadhiya. waxaa Soomaaliya waxay tiraahdaa 40 qafood oo islaam ah oo salaad dukata haday ninkaas yiraahdaan waa lujino kulligeen ma tirahdeen waa lujino. marka waxaan leenahay Allah u naxariisto. aad waxaan ugu faraxsanaa caawa amaantii halkan looga jeediyay qof lama amaanayna hadda aragtaan oo dadka dhan amaanayaan waa nin aad iyo aad u fiican. meesha uu ku geeriyooday meel ka fiican oo lagu dhiman lahay inay jirin markuu ku dhintay taas maxayna tusinaysaa maaragtay inuu nasiib badan oo lahaa. waxaan tacsi ka wadaa qorayaasha bogga cayaaraha.com waxaan u tacsideynaa reerkiisa gaar ahaan caruurtiisa. kulligeen waxaan marxaati ka wada nahay oo halkaan caawa marxaati ka wada ahayn daahir inuu ahaa maxaa la yiraahdaa qof maxaa la yiraahdaa ummadda wax tarkeeda iyo ummadda wax qabadkeeda. waxaan halkaan ugu tacsiyeynaa dhammaan ehladii iyo qaraabadii iyo bahaweynta sportiga ummadda Soomaaliyeed dhammaan ciyaartoydii hore kuwii dhexe iyo kuwii dambe hadda joogaba. walaalkeen daahir Allah u naxariisto wixii la dheelay waa la dhahay. daahir waa naga wada dhinto horta sabr iyo iimaan ilaahay ha naga siiyo. ilaahay jannati firdawsana ilaahay ha ka waraabiyo. aabaheen wuxuu ahaa qof oo ani kaliya aab ma ahayn dad badan aab waxa walaa meel fiican ku dhintay asagoo xaram kale ku kordukaday baby sakhirna qabrigiisa waa lagu duugay.